inaan sheego tan koowaad waxaa waaye waxaan rabay inaan u mahadceliyo walaalaha qaarkooda wallahi been idiinma sheegayay waa markii ugu horreysay oo aan dareemay walaalaha shacbiga Soomaaliya inaysan ii jecel yihiin wallahi waa weyn oo jecel iyo wanaag naga dhaxeeyay laakiin maanta markaan arkay dad ooyinaya soo wacay rag iyo dumar dhalinyaro iyo dad waaweynba wallahi qaar cod ooyinaya ii soo duubay oo dhahayo waa baqnay kan waaye ilaahay ku xifdiyo marka alxamdulillah dadkaas waxaan rabaa inaan dhaho ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa idin weydiiyay dambigiina Allah dhaafo dambiga waalidkiina Allah dhaafo jannada Allah lagu kulmiyo runtii aad ugu farxay waxba waxay ku bartaay marka imtixaan qof markii imtixaamo meel oo cashir kale ka sii qorana ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu baray maanta sheegay inay ummadan jecel yihiin ilaahay waxa weydiinaa jecelkaas jannada inuu nagu kulmiyo inuu nagu fitneeyo arrinta labaadna laba qayb waaye walaalaha oo social media soo gala meesha oo waxaan iska hadlaayo oo wax kas iska sheegayo waxaan rabaa laba xadiis ina idin sheego xadiiska koowaad rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri nabiga ku sallam markaa magaciisa maqashay kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bi kulli ma sami'a riwaaya kale waxa waaye kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a macnaheedu waxa waaye rasuulku wuxuu yiri qofka waxa dambi ugu filan wax kasta oo maqlo inuu sheego waxa maqashay rumiya beemiya mataqaalid waa faafinaysa dambi intaas aqoo filan rasuulku wuxuu xadiis kale ku yiri kafa bil mar'i kadiban qofka waxa been ugu filan wax kasta oo maqlo inuu sheego marka dadka walaalaha social media ku jiro oo ay xaaja qajaf yar markii maqlaan boqolkiiba 99 been ku daray ayuu intaas laga yaabo soo inuu ku raadsanayo views ku raadsanayo marka koowaad walaalahaas ilaahay waxaan weydiinaynaa inuu hanuuniyo hadduu hanuun la damacsan yahay hadduu san la damacsaneen ilaahay waxaan weydiinaynaa inuu ummadda muslimiinta ka qabto si ayagana dambi u gelin shacbigana ay u dambaajinin alxamdulillah anagu iska nabad qabnay shaygiina iska cabnay alxamdulillah hal arrinaa rabo marka inaan baraarujin mudan si fiican ii dhageysta arrintan khayr Allah idin siiyo arrintaasna waxay tahay qof kasta oo social media ka soo qoray qoraal ha soo geliyo ama waxa soo duubo oo aniga iga hadlay ma cafinin maalinta qiyaamane ilaaha la soo hor istaagaysa waxa ku hadashay iyo waxa qortay intaas rabaa inaan ku sheego ama markaa soo hadal ama kaaga ku cesho waxa ku yaalo way hal waxan baa ku sheega waxa barateen waa idin cafini qof kasto clip soo duubay ama qoraal soo geliyay ama dad kale u sii qoray oo aniga wax igu saabsano aniga sharafteeda dhaawacayo magacayga dhaawacayo islaamnimadeeda dhaawacayo been ugu abuuranayo qofkii soo geliyay kuma cafinin arrintaas ku seexo maalinta qiyaama ilaahay wuu istaagi doonaa insha Allah ta'ala walaalaha muslimiinta